شركة الذهبشيل ayaa waxa ay ka dhistay caasimadda dalka Somaliland baan madaxweynaha dalka Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa baankaasi maanta xariga ka jaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya ayaa isla dib ugu laabtay caasimadda dalkiisa ee Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya ayaa isla dib ugu laabtay caasimadda dalkiisa ee Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya ayaa isla dib ugu laabtay caasimadda dalkiisa ee Muqdisho Somali waawid waawid mayra watanawiyo